degan deegaanka aan waxba nala tashan dad iska qortay haddaan codkiina waa yarya haddaan تصل وماسنتي نادي أبا وماسنتي أنا قال سكين برو أنا مقعيق وحالي هذا أنا سكين برو مقعيق وحالي هذا نبضون عبدي علو عمر سقوله وحنا هي نبضون ولا شيء باشا هرتي إذا مركان وحالي شيء يا إسبهيس كستو أو نعي هذا درجتان هرتي واقف بحال أنا وهرتي وحالو تاجرني إسبلد الدون كم من ورا عزتين إذا كانوا حدورنا رجع يدمر الشعب إلى غير سكان هذا ما سكين هذه أبا مرغبات عالمك لما دوك مرو بلجو أنا وش شيءنا ما تمجوا نحلقي أشوف الوادي هذا ريال وحنا دورنا وحبوا حلال وحنا عدي استعمال عدي ممكن وحنا قسم بين راعي وحنا دي شيء ولا ريال لما تنقل وحنا كوبنا أنت تجيب الله هيك كوبنا مشرحين هل كان فنيا بعيك كوبيه لما بلا الصومالية عندنا وحنا رجالنا وحي دوريا ومنع وحي دوريا إن افتين وحلو بقيمسه أنت الرالة بكناي لما سنتي جبنا أنا راتو يذكرون أولاده كريتها لو مغعاوي او هره doorashada shanta xildhibaan kareeta lagu magacaabo hadana waqtigoodii markuu dhamaaday kulankii lagu xiriyay baarlamaanka in waqtigiisu dhamaaday madaxweynuhu cashada ugu sameeyay golaha xukuumadda iyo intay noo yimaadeen bay waxay nagu yiraahdeen maanta rada kareeta lagu magacaabay inta yadii hore soo noqonaysa أنا بس يلا أنا أغنى إن أنا الحلبان الدورن وأنا عندنا وكيلين وأضيال أنا لك حرين وأنا أغنى بوحوا لي أضياشي هبل بالسوا حري حلبان هبل ولا صدور حلبان هبل ولا وحكت ترى ما ترى أنا رنتا شنت حمنا وما ترتين حرب وليها برسول وبدغم بيلاده هشيس بلشان لنا ووريتانو نري واكويشين شنتي بيلودا markii hore qaadatay ba hadana dakareeta ahaan loogu magacaabay ma aqbalayno beelaha kala hale kuwa kala iskale ayaa ku soo gabagabaynaya dawladda maamulka hadda Jubbaland madaxdeeda waxaan kula talinayaa waqti 7 sano xilka soo haysan soo hogaaminaysan wax badan baad soo qabateen ma la inkirayo waxaad qabateen wax badanna waa in ka khaldameen insaankaana saasa in waxna u saagaaji waxna ka khaldamaan wixii in ka khaldamay ma haysano waxaad ku qabateenna waa ku mahadsantiin dhulka dhiga doorashada dadkana taladiisa qof cid walba doorka ay ku leedahay siiya ha noqonina aboodigii ilmuhu dhalay cuni jireeyo waxaad dhisteen ha duminina wassalaamu calaykum walaalayaal maanta waxaanu ka warqabnaa dadka jeer Jubbaland heer tuulo heer daaq heer degmo heer gobol inay u baahan yihiin isbedel cadaaladeed oo ku dhisan wadaag tala wadaag ku dhisan aan caburo ku dhisnayn gacanta isqabsada inay doonayaan maanta haraad badan iyo dhibaato badan inay u marayaan dhammaan reer Jubbaland maantana idinka ayaa u wada wakalaya dhammaan waa wada joogtaan waalaya aniga joogara waa lay doortay reer beeshayda hoose 7 sanadoon bay ka kooban tahay 7 sanadoon markay doorteen ayaa waxaa la yidhi أحمد الله كما أقبل كرو مركا وين دعني قبل 3 راحين قبل كلا الله كنا أقبل كرو مركا ما دام المال الرجال إيو صومالي إيو جبلاني من بالغ العناية بسح اللي بانو وحين ترى أمام دفاع هرمر صوماليو إلى المنية وحين اتجاه ما أنت كينا بنوبة عنها بس واحد نوبة عنها 7 قفوات وإحنا نوبة من قصبهم وعلى باهي
استاجا هدا قبا هنتي كهدي كره استاجا وحاس هاي بولي نريك حلال ما دشو وحرام كل شيء الدواء قرن كان وحياه وحن لeenahay dadka jeeray Jubbaland waxaynu ka soo gudbnaa qabiil system baan samaysanay systemkaayna deeqaya inaan ilaalino wada noolaanshahan iyo wanaagga iyo quruxda aan ku fadhinaa ku wada joogno inaan hore u sii socono intaasaan raalli ka nahay intaas raalli ka weyn inta doonaysa inay carqaladayso wax afduubto wax boobto inaan iska qabano soo raalli ka weyn waxaan rabnaa midnimo nabad meesha aan joogno inaan hore uga sii socno inaan dib u noqono ma rabno inaan hore sii socno soo ma rabtaan musharaxiinta iyo isbedel doonka dhammaan aad baa u mahadsantihiin waxaan leenahay idinkana ummaddu weydiin hanqaltaagaysaa waa idin soo dhowaynaynaa dadkii 30 sano burburka iyo dhibaatada soo marannahay dhibaato iyo burbur damba ma rabno nabad baan rabnaa nabad iyo maslaxo iyo deganaansho inaad ugu hagtaan baan rabnaa kuwa kale xukuumadda hayana war meel baad keenteen waxaan leenahay meeshaad keenteen ma aha anigaa idhi iyo anaa yeelay ma shaqaynayso war meel shaqaynaysaa ma shaqaynayso waad ogtihiin dictaatoriyad maxamed siyaad barre dictaatori buu ah dowladdiisa meeshay martay waan garanaynaa meeshay martay dictaatori meel u baahannahay maya dictaatorina rabnaa ma doonayno waxaan rabnaa xukuumad xalaala oo isbeddesha oon habeenaha ka taagannahay oo wada tashanaan u baahannahay waxaan u baahannahay hadda nimanka guddiga waxay sameeyeen dadka qaar beele iyo qaar gabdhooda waxay dhahaan ma jiraanba oo way ka saareen xaaladda qaarna waxay sameeyeen warkan mar habeen ima taageersana reer baaliin tuur kuwa cusub bay sameeyeen oo haddaad xukuumad soo jirtay iyo tala soo jirin iyo boqortooyo soo jirtay haddaad baabayso adoo xukunkaa see ku soconaya wey war miyuu soconaya waxa weeye waxaan rabnaa isbeddel xalaala oo aan buuq lahayn oon inqilaab lahayn oo aan dhiig ku daadanin oo si tala ah war maxaan yeellaa cod iyo doorashaan rabnaa cod iyo doorasho xalaal aan rabnaa ninana xaraf anugu hadda uma geysanayo walaalka xamse gudoomiyaha ninka lagu magacaabay faalsada aan jecelahay waxaan leeyahay dadku wuu ku jecel yahay intaad ceeboobin iscasil annagaa dhaqaale kuwa haynaa ninkaa waxba ma haya adduunka o dhan uu ka soo jarmay adeerow iscasil adeerkaa baan ahay ha ceeboobin nin culimaa baa tahay adduunka iyo dadkuyaysa ku nicin biyo fadhiya biyo socdaa kiciya daad baa socda daadku yuusan ku qaadin intuusan kaarku kaa gubanin iscasil kaarku wuu gubtay kaarkaaga wuu gubtay hadda aan ku badbaadinay iscasil baan ku leenahay intaa xamsaan leeyahay inta kale waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee Jubbaland maanta wax madaxahoo Jubbaland maanta ma jiro أحمد بان أول كرة مدحها إسلامويس عسلو مشرح أبو النقضة ورقدي وقاطي مدحوين الجبل لأن أنا ما تكابر ثم ريم اسكدا معربة فوليو ديمو جيسي ونورو Soomaaliya saqiir iyo kibiir dadka ku nool Jubbaland waxaan leeyahay ninkii jiifo toos ninkii fadhiyo istaag ninkii taagan oo soo dhaqaaq soo raac ummadda xalaasha musharaxiinta xaqa ku socda ee Ilaahay jecel yahay ee ummaddu jeceshahay ee xaqiiqada ee cadaaladda soo raac dooyinkeenana aan ku soo bandhigno aad iyo aad buu mahadsan yahay ugaas musharax Seraar aad baad u mahadsantahay inta markaa ka gudbo aniga oo ku hadlaya afka dhaqanka Jubbaland kaygana ku hadlaya ka muqaabilna ku hadlaya waxaan garab taaganahay waxaan hiil iyo hoo maskax iyo maal iyo muruqba garab taaganahay musharaxiinta isbedel doonka ee Jubbaland waxaan ku garab taaganahay oo aan rabnaa inaan
siino xaq iyo cadaalad iyo isbeddel saxa inay ku keenaan Jubbaland horena ay u dhaqaajiyaan waxaan ka soo horjeednaa oo aanaan yeelaynin guddiga doorashooyinka waxa ay samaynayaan ee ay dhaqanka ku samaynayaan ee ay bulshada ku samaynayaan iyo qoraalada ay soo saarayaan midna ma yeelaynin haddaan nahay shacbiga Jubbaland waxaan la rabaa haddaynu nahay shacabka Jubbaland haddaynu nahay dhaqanka Jubbaland haddaynu nahay culimada Jubbaland haddaynu nahay aqoon-yahanka Jubbaland haddaynu nahay haweenka Jubbaland in aynu cod dheer ku garab istaagno musharaxiinteenna isbeddel doonka looma baahna waxa la yidhaahda inaynu ashinku adin ahaano inaan hoos u hadallo dad baynu nahay qof walbana xilli buu dhintaa looma baahna waxa la yidhaha ashinku adin waxaan laynaga rabaa oo shirkan laynoogu qabtay guddiga doorashooyinka waxa ay samaynayaan innaga oo shacabkii Jubbalandiya inaynu ka hor nimaanno inay odayaasheedii bannaanka uga saareen shirarka oo ayna ka qaybsan 7 qof ee loo doortay guddiga doorashada Jubbaland waxaan u arkaa hortoodaan ka sheegay oo aan 3 su'aalood ku weydiiyey oo aan 3 qof ma khasaba qofkii hore inuu ku soo noqdo talabaada weydiiyey waxay noqotay ma khasaba inuu odaygu odaygii reerka u talinayay intuu bulshadiisa ku noqdo uu dadkiisa la tashto miyuuna xaq u lahayn idinku toddobaadkiina maxaa gabadh keliya idinku daray oo wixii raga idinka dhigay 3 su'aalood waa weydiiyey 3 su'aaloodna waraaq cad baa la ii soo dhiibay taas anaa iska raali gelay waayo meel adoon iga firreyn baan galay takada waxaan rabaa odayaasha hartiya halka fadhiya waan mahad celinayaa ka soo qayb galay shirkan aad bay u mahadsan yihiin waxaana jecelahay oo idinku gulaabinayaa in wixii idinka maqnay aad raadsan kartaan waraaqii aad qorteen tii dambaad qorteen intaba u arka waan idinku taageer waxaan rabaa shanta nin ee dikaratada lagu magacaabay ee haddana la yidhi iyagii baa soo noqday waa idinla qabaa mana doonayno waxaan kaloo rabaa odayaasha beesha dhulbaantay ee ugaaskoodii la yidhi waa nabadoon dhulbaantay isagoo ugaaskii beesha harti ah nabadoon lagu calaamiyey taana ugaaska anaa bolojees ka bixinaya oo dadkii reerka bedelaya odayaasha shirka qabanaya ee kooxdaanu soo xunaynaa ee harti ka tegey ee 5 nin ee dhagaxeela 2 nin ee dawladda ay meesha geysteen ma yeelayno mana yeeli doono ma yeelayno mana yeeli doono waxaan rabnaa ma yeelayno waxaan rabaa odayaasha halka ka maqan reerka inay halka yimaadaan shirka dambe waxaan rabnaa inaan banaanbax samayno هذا بهنا الحين هذا وسوينا لما تقولين وبنام بحنا شبنا أنا قاعد سنين بس هم قابلين شبنا أنا قاعد سنين ما لنتي على شبنا الثانية جامعة الجو ما لنتي تصوير كلام سنين هذه جولة جامعة ما لنتي مدحوينها قعدتها اللي بتورنين وحنا جولة جامعة هو بيها مركز شباب من بتورنين واقفين إلى هذا روح بقى معي وحاربنا إلى نسبة الحق يا حلال يا الله waxaanu diidanay oo ka soo horjeednaa 7 qof ee meesha la geystay dhagxaanta ee waxna qorin waxna aqrin cod inay magacaabayaan guddi doorasho oo nagala tashanayo bulshada xubnaheeda kala duwan insha Allah waxaan idin sheegayaa guddiga doorashadu inay weli ku jirto wada tashigii ummadda reer Jubbaland waxaan rabnaa inaan ka beesheegin ummadda tashigeeda oo wax badan ummadda laga weydiiyo laguna tashado hadday yihiin haweenka hadday yihiin dhalinyarada aqoon-yahanka odayaasha culimada siyaasiyiinta musharaxiinta waxaan isku waafaqsanahay inaan soo saaro soo ma intaaba isku waafaqsanahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaybaha kala duwan musharaxiinta odayaasha dhaqanka
gabdhaha Soomaalida halka yimid qiimaha badan dhalinyarada saxaafadda iyo qof kasta oo Soomaaliya oo halka yimid waxaan leeyahay mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam walaalayaal waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaadba inaad maanta soo ajiibtaan fadhigan qiimaha badan oo lagaga hadli doono runtii aayaheenna iyo mustaqbalkeenna iyo wadajirkeenna iyo midnimadeenna waxaan rajaynayaa inta ay khudbaduhu socdaan qof kasta oo Soomaaliya halkan joogo inuu si fiican u dhagaysto qaybta markaa kaga aadana uu qaato haddii alla idin insha allahu bidnilaahi alkariim shirkanina wuu inoo furan yahay waxaan ku soo dhawaynayaa sheekh maxamed ibraahim shakuur oo ah musharax ka mid ah musharaxiinta golaha Jubbaland haddii darawalkii yidhaahdo gaarigaan wadaaya ka warrama saasa asagoo xanuunsan bal gaarigaasaan wadaaya taayirna male injiinna male waa ku fadhiyaa seerinkii inuu waduu rabaa ma soconayaa kaasaan badbaadinaya badbaadada kaabirka waxaan badbaadinaynaa darawalka waxaan leenahay waa xanuunsan tahay isbitaalka aadaysa si gaariga loo hagaajiyo soo maaha intaasuu fahmi laayihiin nimanka jooga meesha intaanay fahmi laayihiin guddiga dib u soo celinta darawalka jiran waay kuwan yaa gaari xanuunsan iyo darawal xanuunsan ba inay soo celiyaan rabaan meelayna reer Jubbaland waa tashadeen waxay ku tashadeen inay kala diraan guddiga oo guryahooda kala aadaan guddi cusub la soo doorto waxay reer Jubbaland ku heshiiyeen oday dhaqameedka saxda in la keeno oo oday dhaqameedkana uu soo xulo hal xildhibaan soo ma aha mise waa saddex hal xildhibaan soo ma aha oday dhaqameed sharaf leh baan rabnaa annagu oday dhaqameed la isku bedelo ma rabno oday dhaqameed la karaamad dilo oo dadka cudur loo gelgeliyo ma rabno walaalayaal waxaan diidanahay waxa weeye bulshada inaanan la kala dilin oo aan cugdada loo kala dilin oo aan la kala baabi'inin in la isku hayo soo ma rabno dadkii isku hayn lahaa kuwaanu maaha kuwaan waa ina dhaafaan weeye waxaan leenahay na dhaafa waa in ku daalnay waa la iin soo sabray waa la iin sabciyey waqtigiina wuu dhammaaday darawalka xanuunsan iyo kuwa dib u soo dooranaya waa inay israacaan hal mar soo intaa ma aha intaan rabna intaa weeye maxaan u baxaynaa doorasho xor iyo xalaal ah aad ka qayb qaadataan ma waxaad aragteen qof bani aadan oo maanta 2019 jooga oo la leeyahay ma hadli kartid shir ma qabsan kartid wadada ma socon kartid keligay baa hadlayo keligay baa intaba ruuxa geel waa waxay ka jiraan waxa Jubbaland ka jiraan Soomaaliya kismaayo ka jiraan kismaayo baadanahay waadiga waxa Soomaaliya waxa waadiga waa maasabka islaamada abaabulka barnaamijyo ama masiiraad barnaamijyo lagu cabirayo ra'yiga shacabka waxaan rabnaa inaan ra'yigeena cabirno dowladdu wuxuu soo abaabuli doonaa masiiraad ama barnaamijyo la soconayo oo meelaha la isugu imanayo fagaarayaasha oo aan ku cabirayno fikirkeena annagoon ilaahay mooye cid kale ka baqay ma rabno in qofna la dulmiyo masiiraadka iyo shirarka iyo barnaamijyada ma noqon doonaan kuwo dadka lagu caayo kuwo dadka lagu aflagaadeeyo kuwo dad lagu dhibaateeyo ma noqon doonaan keliya waxay noqonayaan inaan annagoon baqaynin fikirkeenna iyo waxa aan ka rabno Jubbaland inaan cabiri karno oo hooyada ay cabiri karto oo wiilka dhalinyarada ay cabiri karo oo odaygu uu cabiri karo oo aqoonyahanku uu cabiri karo dhihi karo waxa ma ogolin waxaasi sax ma aha mana aqbalayno inuu dhihi karo dadku waa xor ilaahay baana xornimadaas siiyey islaamkaana siiyey شروط عالمية مسيسين وفطرة الله التي فطر الناس عليها. إسبدل كان دوني إنه إسلامتو مركز داليسو ومنسا كان داليسا إسبدل كان دونا هيو وحال الربييني ومنسا كان نقطو قديقا إسبدل دو قديقا دور الشدة ومنسا دا حن
aqoonta aan lahayn ee kadeedka umusha iyo ilmahaba way dishaa may maqashaan umulisada farsamada xun waxay sababtaa umusha iyo ilmaheedaba inay isku dhintaan guddi ku sheegan waa umulisa xun weeyo guddi ku sheegan waa umulisa xun guddi ku sheegan doorashada waa umulisa xun umusha iyo ilmaha inayna isku dilin ayaan u taagannahay idinkana nala qaata maxay umulisa xun u tahay laba nin baa hadda ka hor webigay ku dabaalanayeen mid baa wuxuu yidhi inaaba waan dabaalan webiga markaan dabaasho adigana iga soo dabaalo kadib aan isu sheegno sidaan u dabaalanay wuxuu yidhi anigu saan u dabaasho wuxuu yidhi waad ficlaada laakiin dhaxda markaad soo gaartay bay kaa taro kii kale anigu saan ahaa buu yidhi adigu wuxuu yidhi dabaalxumada xiriqaad ka soo bilowday umulisadan xun dabaalxumada bayskii bay ka bilowday nidaamka iyaga lagu xulay baa ahaa nidaam faashil ah oday dhaqameedyadii aan xulanay ee salaadiinta inay ahaa bay doonayaan inay gacan bidixeeyaan musharaxiinta dhexdhexaadu ma ahe waxay rabaan hal qof inay u shaqeeyaan xafiis iyo adrees iyo meel loogu soo aada midna ma lehe waxay rabaan maqaayadaha inay maalin walba wax ku soo saaraan ma waxaasaa ummadda dhexdhexaad u noqon kara ma waxaasaa mas-uuliyad lagu aamini karaa kuwa iyagu ah ummaddu shar bay u keenayaan sharkeedana waxaan leenahay maya adduunka meel kastoo doorasho ay ka dhacdo oo doorashada la xado oo dirir ay ka dhacdo oo ummaddu ay isku halaagto mas-uuliyaddeeda sidaan maalinta hore sheegay umulisadaa xun baa qaadata annagu xaaladeenna way ka duwan tahay adduunka dalkeennu dirir baa martay 30 sanuu dadkeenna isleenhayey cadowgaa magaalooyinka bannaanka u taagan mujtamaca nolol buu rabaa cadaalad xumuu tirsanhayaa carruurteennii baa badaha ku dhammaanaysa dowladdeennii annaga inaan wada shaqaynaan doonaynaa wakhti aan isqa qabsanno ma joogno umulisadaa xunne dadkeenna iskuma laynayso sababtaan u diidnay een u nidhi wakiil nagama aha waxa ka soo baxana waxba kama yeelayno waa sababtaa iyadaa wey waxaan doonaynaa musharaxiinta annagu haddaan nahay annagoo bulshada rayidka kaashanayna annagoo salaadiinta kaashanayna annagoo dowladda dhexe kaashanayna dad ummaddu dhexdhexaad u ah akhlaaqdoodu la yaqaano wadaniyadooda la yaqaano diintooda iyo dadnimadooda la yaqaano dal u naxle ummadda mas-uuliyaddeeda qaadi kara cadaalad ummaddu u horseedi kara doorashadan iyo processkan inay gacanta ku dhigaan baan doonaynaa maya umulisa xun waxa ay malmaluuqahayaan hadday socoto kulligeen waan ognahay waxa ka dhalan kara waa cadaalad darrana waxaa ka dhalan karta conflict in afka lagu dagaalamo in talada laisku diido in wixii la wada dhistay ee burburaan in cadow ummadda ay u soo dhuumato waxaasoo dhan iyo wax la mid ah baa ka dhalanhaya waxaana wakhti uma heenno dalkeennu halaag buu soo maray meesha maanta ay wax taagan yihiin in laga dhaqaajiyaan rabnaa umulisa xun oo musuq maasuqa oo qof keligii u shaqaynaysa oo ummadda aan mas-uul ka ahayn taladeeda ma yeelayno باش كرو غادي